filimkan waxaa lagu soo bandhigay qaabkii uu u dhacay dilkii loo geystay saxufigii kasoo jeeday dalka sacuudi carabiya jamaal khashoggi kaa oo la tilmaamay in lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul 2 sano ka hor. haddaba waxaa kasoo muuqanaya raggii dilkaasi fuliyey marka loo eego filimkan dokumentariga oo la sameeyey, waxaana jirta sheekooyin dhexmaraya khashoggi iyo sidoo kale kuwa dilka geystay. filimkan ayaa waxa uu soconayay ilaa iyo saacado, waxaana lagu soo bandhigay ceejintii loo geystay ee lagu dilay jamaal khashoggi iyo kooxdii ka socotay dalka sacuudi carabiya uu hogaaminayay dhakhtar salaax al dabiiqi, kaasi oo lagu eedeeyay in uu gowracay saxufiga. warbixinada iyo sidoo kale hadaladii ay duubeen saraakiisha dalkaasi turkiga ayaa lagu dhex maqlayaa filimka inta uu socday. kooxdan waxa ay ka koobneyd 15 qof oo iyagu fuliyey howlgalkii lagu qaarijiyay khashoggi, waxaanay u badnaayeen sirdoonka dalkaasi sacuudi carabiya. howshii ayay qaybsadeen, waxaana ay ka dalbadeen ama la arkaya ruux lagu magacaabo turki mushrif oo isagu ka mid ah dadkii ka qayb qaatay dilkaasi sida filimka uu xusayo. filimka sidoo kale waxaa kasoo muuqday mid ka mid ah dad caan ah, waxaana ku jira ayaa layidhi ninkaasi turki la yidhaahdo saaxiibadiisa oo isagu ay ka codsanayaan boorsada inuu u dhiibo, balse ka dalbanaya in boorsada uu dib ula laaban doono magaalada riyaad. warbaahinta turkiga iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka oo soo xiganaya saraakiil dhinaca amniga ayaa waxa ay tilmaameen in madaxii khashoggi loo qaaday dhinaca magaalada riyaad isagoo jirkiisa waxba aan laga reebin. waxaa xusid mudan in dhammaadkii bishii Oktoobar 2018 barta Middle East ee dalkaasi Britain ka soo baxda in koox baarayaal Turki ah ay iyagu baaritaan xoogan ay ku sameeyeen aqalkii weerarkaasi amaba dilkaasi uu ka dhacay, kaa oo ay kasoo haleen dhowr cadeymo. bartu waxa ay leedahay kooxdii baaritaan ee Turkiga waxa ay soo heleen qayb ka mid ah meydkii khashoggi, waxaana ay rumaysan yihiin ayaa la yidhi in la jarjaray oo riyaad loo qaaday. waxaana fuliyey ayaa la yidhi mid ka mid ah ilaalada gaarka ee dhaxal sugaha dalka sacuudi carabiya amiir maxamed bin salmaan. saraakiisha turkiga ayaa hadalkooda waxa inta ay ku dareen in meydka khashoggi loo qaaday dhinaca iyo wadanka sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada riyaad, waxaana qaaday ayaa la yidhi sarkaal dhinaca sirdoonka sacuudiga oo lagu magacaabo maahir madrib. haddaba maahir madrib waa mid ka mid ah xubnihii amniga ee 15 eedeysane ee lagu eedeeyay dilka khashoggi. waa ninkii siday boorsadii weyneed ee diyaaradda gaarka lala raacayay. barto waxa ay leedahay madrib ayaa istanbul isaga tagay kadib markii la dilay khashoggi isagoo qaatay diyuurad gaar ah, mana jirin ayaa la yidhi cid baartay boorsadiisii. barto waxa ay leedahay sidaas waxa ay ku dhacday in uu diyaarad gaar ah uu ka raaco garoonka Ataturki, waayo waxa uu ahaa mid watay baasaboorka loo yaqaano diblomaasiga. bishii Febraayo 2019 warbixin ay soo saareen laamaha amniga Istanbul waxa ay sheegeen in ay heleen 2 ceel oo ku taalay guriga qunsuliyadda, waxaana ay tilmaameen in gaas lagu shubay iyo sidoo kale xaabo kadibna dab la qabasiiyey. warbixintu waxa ay leedahay kooxdu waxa ay ka hortagayeen xitaa in dhiigga DNA-da si fudud lagu helo. waxay sidoo kale warbixintu ay leedahay ee filimka lagu soo bandhigay in mas'uuliyiinta amniga Turkiga ay rumaysan yihiin suurtagalnimada in meydka jamaal khashoggi isagu markii la jarjaray la gubay. waxaa xusid mudan in filimkani uu soo saaray aktarka dalkaasi Mareykanka ee filimada soo saara Brian Vogel uusan ahayn mid dad badana saameeyay, balse 2 toddobaad markii la sii deen rabay ayaa shirkadaha iyagu filimada sii baahiyay waxa ay diideen in filimkani la sii daayo.